isku faataxaysteen baa u malaynaya habeen hore la hadlayay wixii xoga macnaha ilaahay baa og ma fahmaysaa laakiin diraac waa ka yaabay ummadeena ma sheeko hambalyo halkan waxaan hambalyo uga diranaa Salma la jeclay iyo diraac waa laba youtuber oo runtii ku dhaqan isla magaalada Garowe ee caasimadda Puntland haddaba waxaan halkan hambalyo sidoo kale uga diranaa Salma la jeclay oo si khaas ah runtii uga mid ah hablaha ugu firfircoon ee barta YouTube ka shaqeysta sidoo kale diraac oo runtii isaguna wiil dhalinyaro oo runtii ka mid daaliya dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan halkan boqolkiiba hambalyo uga diranaa Salma la jeclay iyo diraac waxaan leenahay Ilaahay niga dhigo kuwa isku nagaada ubad iyo khayr qaba kala hela ee runtii kala hela ubad runtii anfaca iyaga iyo dadka ummadda Soomaaliyeedba sidoo kale waxaan halkan uga ducaynaynaa Salma la jeclay iyo diraac oo runtii noqday qoys cusub oo ku soo biira ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu ducaynaynaa ducadii nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yiri qof kasto guursada ugu duceeya barakallahu laka wa jamع baynakuma bil khayr banilayn Ilaahay niga dhigo kuwii dhammaan isku raaxaysta ee runtii kala hela farxad iyo carruur iyo immigrant sareereyn haddaba anaka team xog bixinta wararka isku duuban waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu barayna inuu ka dhigo runtii qoys farxad iyo reereyn ku abuurma sidoo kale Salma la jeclay oo runtii uga soo hayaantay cariga Malaysia si diraac nolol cusub kula wadaagi lahayd halkaasna ay runtii ka samaysan lahayd guri ay ku nagaato maadaama ay Salma la jeclay ee ku dhaqaneed wadanka Malaysia ee runtii kaga timina asxaab aad u badan sidoo kale waxaa jirta arrin 24 saac iyo labadii cishay ugu dambeeyay baraha bulshada saameyn weyn ku yeelatay taasoo la leeyahay Kamaal Cabdalla oo runtii isaguna wiil YouTuber oo Salma la jeclay markay Malaysia ay wada jeegeen runtii ay saaxiibtinimo aad u fiican ay kala dhaxaysay taasoo la leeyahay arrinkii ay Kamaal Cabdalla ku hesheeyeen way uga baxday sidoo kale bari hore Soomaalida ku mahmahday gabadh haday kun bay la sheekaysantaa hal qofna way ka raacdaa sidoo kale haddaba waxaan leenahay arrinkaas wax kama jiraan oo runtii ay dadku saas kula dhexmarayaan maaha laakiinse xaqiiqada dhabta ayaa runtii in ay Salma la jeclay maantaba ay jacayl cusub iyo runtii reereyn ee ku yeelatay qoys cusub ay ka abuurtay magaalada Puntland iyo Garowe haddaba waxaan halkan dhammaan haddaan team xog bixinta wararka uga diranaa in Ilaahay isku nuuriyo oo runtii kala helaan barwaaqo iyo bashbashi barwaaqaba sidaa ugu macaanaystaan noloshooda inta